sida aad coin ugu iibsan lahayd adigoo isticmaalaya kaarka bangiga Soomaaliya. Aaron waxaad isticmaalaysaa kaarka bangiga Soomaaliya. Dad badan waxay aaminsan yihiin in aan lagu iibsan karin adigoo isticmaalaya kaar bangi oo Soomaaliya ku yaala, balse midaas waa been. waxaa soo dhow muuqaalka inta ku ogaan doontaa iyo sida aad ugu iibsan lahayd. ku soo dhow muuqaalka. Assalaamu calaykum. ku soo dhawaadiya channelka cusub. Haddii ay markii ugu horeysay waxaan kaa codsanaynaa channelka inaad subscribe saarto, sidoo kale muuqaalka aad like saarto. channelka waxaan kusoo gudbinaa muuqaalo ku saabsan sida online maanta aad ugu shaqaysan lahayd iyo fursadaha online maanta yaalo. Gooraan waxaan soo gelinaynaa koorsooyin full ah ku baranayso xirfadaha kala duwan. Si muuqaalaas dhan ku dhaafin waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, gambarka aad furato si muuqaal walba kugu soo dhaco. Okay, anu gudubna muuqaalkeena maanta. muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida Binance aad u samaysan lahayd. waxay soo weydiiyay dhalinyaro badan oo ku nool Soomaaliya sida Binance loo samaysto ama loo verify gareeyo, sidoo kaleetana adigoo isticmaalaya kaarkaaga bangiga Soomaaliya sida aad coin ugu iibsato. Okay, intaas oo dhan waad ku samayn kartaa Binance. waliba aad ayay u fududahay haddii aad intaas fahansan tahay. muuqaalka adiga kuma socdo, balse haddii aad intaas fahansanin muuqaalkan adigoo ay kugu socdaa. Okay, si aad u jeedid akoonkan waa verified, wuxuuna ku samaysan yahay Soomaaliya. Okay, si aad u jeedid Soomaaliya ayuu ku samaysan yahay. Okay, maxaa lagaaga baahan yahay marka in akoonkaaga aad verify gareyso, sidoo kaleetana haddii aad wax u baahato ama coin u baahato sida kaarkaaga bangiga aad ugu iibsan lahayd. waxaa lagaaga baahan yahay horta akoonka waxaa kula qaadaynaa laba qaybood. akoonka wuxuu kala baxaa Binance laba qaybood. qaybta koowaad waxay tahay waa verified clear. qaybtan waxaa lagaaga baahan yahay clear waa information clear, personal information clear. qaybtan kaleetna waa verified plus, waa address proof ayaa lagaaga baahan yahay. marka maxay kala duwan yihiin labada? waxay kala duwan yihiin waxay tahay haddii aad baasaboorkaaga clear, haddii aad informationkaaga clear aad buuxisid, waxaad awood u leedahay kun inaad maalintii gashato aadna kala bixi karto. unlimited crypto sidoo kaleeto Bitcoin maalintii 100 xawaa lagu ogol yahay. sida u jeedid haddii aad informationkan kaliya buuxisid uma baahnid xitaa verified plus ama address proof. balse address proof naftirkeeda haddii aad u baahan tahay wax lagaaga baahan yahay waan ku sheegi doonaa maxaa lagaaga baahan yahay. marka kan haddii aad sii buuxiso isagana waxaad helaysaa, waa optional oo kaleeto. haddii aad buuxiso waxaad helaysaa maalintii waxaad awood u yeelanaysaa inaad 200 kun aad maalintii kala bixi karto, aad gashan karto, sidoo kaleetana unlimited oo crypto ah. marka tan waa iska dhaafi kartaa, muhiim xataa ma aha. kaliya haddii aad haysto inta ku sheegay waxaa lagaaga baahan yahay kaliya inaad haysto passport, wax kale uma baahnid. xataa haddii aad optional kale haddii aad u baahan tahay verified clear haddii aad u baahan tahay kaliya passport inaad haysto ama ID dowlad. passport markaad haysto waxaad u baahan tahay sidoo kaleetana visa card. haddii aad u baahan tahay inaad coin halkan kaga iibsato adigoo isticmaalaya kaarka bangiga Soomaaliya, waxaad u baahan tahay visa card. visa cardkaas waliba ha noqdo IBS bank. anaa midkaas ku hubo haddii IBS bank uusan ku shaqeey waayay adigoo haysta Mastercard ma asku qaldin, waa visa card. visa card haddii aad haysto waa uu ku shaqeynaa, haddii uu ku shaqeey waa aniga la soo xiriir, aniga midaas ka hubo. sidoo kale waxaad u baahan tahay bank statement, waa haddii aad u baahan tahay optional kaleeto oo ah verified pluska inaad hesho address proof. waxaad u tagaysaa IBS bank, waxaad leedahay waxaan u baahanahay bank statement. sidoo kale waxay ku soo raacinayaan addresskaaga. intaas fahantaa umaleena. marka hadda waan ku dul maraa qaabka aad iska register garaa lahayd Binance. ila soco. waxaad tagaysaa Google-kaaga kadib waxaad ku qoraysaa Binance. kale waxaan kusoo dhigay linkii hoose halkaas karaac. sidoo kale telefoonka haddaad haysto telefoon waad ka samaysan kartaa, waa isku mid. waxaa kusoo bixi doona shaashadan ama wuxuu ku keeni doonaa qaybta ah register. waxaad ku dhufanaysaa haddaadan arkin register, ku dhufan qaybta registerka ah. waxaa kusoo bixi doona wadanka aad ku nooshahay si automatic ah ayuu kugu soo qaban doonaa. haddii uusan kusoo qabanin qaybta sirji taabo kadib Soomaaliya ku sirji karee. okay, kadib waxaad leedahay confirm. okay, qaybtan ku keeni doonaa oo telefoonkaaga inaad ku xirato ama emailkaaga. waxaan kula talinayaa inaad emailkaaga ku samaysato. okay, halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga, sidoo kale waxaad gelinaysaa passwordkaaga. okay, create account. kadib leedahay markuu qaybtan ku soo baxo get a code idira leedahay, code ayuu ku diri doonaa. kadibna gmailkaaga aad imaanaysaa, halkaan ayuu ku soo dhici doonaa fresh leedahay. okay, kadib waxaad gelinaysaa code ay ku soo direen. kadib waxaad leedahay submit. okay, markaad soo gasho wuxuu ku keeni doonaa, markaad soo geliso codekaaga halkaan ayuu ku keeni doonaa. kadib waxaad ku dhufanaysaa get verified, ama halkaan ayuu ku soo kori doonaa ama halkaasi. okay, labada dhinac ka fiirinaysaa, ama halkaan aad ka arkaysaa ama halkaan aad ka arkaysaa. okay, waa isku mid. haddii telefoon isticmaalayso ama kor ku soo qaban karaa ama computer sidoo kale aad arkaysaa get verified aad ku dhufanaysaa. sida u jeedo automatic wuxuu ku soo qabtay waddanka aad ku nooshahay Soomaaliya.
Soomaaliya oo duusan kusoo qabanin bedel ka dhig Soomaali halkan. qaybtan wuxuu ku leeyahay information-ka geli kadibna halkan tag gal halkaas ku dhufo kadibna waxaad dooranaysaa Soomaaliya halkan sidoo kale passport haduusan passport kuwa passport dooro kadibna continue dheh kadibna wuxuu ku leeyahay passport qaabkaad yani iskaga qaadayso footada sawirna iskaga qaadaya loo baahan yahay halkaas tag photo ku qoraysaa ama haddii telefoon isticmaalayso sidoo kale ku soo qabanaya kadibna waxaad gacanta ku qabsanaysaa passport-kaaga gacanta ku qabso kadibna sawirka iska qaad ku dhufo kaamirada capture dheh hadda inaan intaas sameey intaas kaliya waa kadibna waad diraysaa kadibna approve kor ayaa laga siinaa marka approve-ka laga soo siiyo ayaad haddana kan haddii aad u baahan tahay in verified plus-ka inaad hesho waxaa isagana aad u baahan tahay waxay tahay in aad geliso bank statement aan ku sheegay bank statement aan ku sheegay aad u baahan tahay in halkan geliso kadibna si automatic ah verified plus-ka aad helaysaa kadibna coin-kaaga si caadi ah u iibsanaysaa kadib marka intaas sameyso waxaad u baahan tahay waxay tahay haddaan ku tusayaa qaabka aad coin ku iibsan lahayd akoonka markuu sidaan verified kugu noqdo oo qaybtan iska dhaaf wax dhibaato ma lahan intaas na soo boogtid oo akoonka soo verify gareysay waxaa u baahan tahay hadda inaad iibsato coin ama crypto tagaysaa buy crypto halkaas ku qoran tahay kadib waxaad tagaysaa credit card iyo debit card halkan ku dhufo kadibna gudaha u gal kadib halkan ayuu ku keeni doonaa kadibna amount aad u baahan tahay geli tusaale ahaan waxaa u yar horta waxaad deposit gareyn karto waxaa u yar waa $15 ama $15 ku iibsan kartaa u yar tusaale ahaan boqol dheh boqol markaad dhahdid waxaad bitcoin ayaa saaran waad ka bedelaysaa waxaad geysanaysaa lacagtaani ah USDT okay midaan waa doolarka caadiga waa isku mid $1 ma dhafto waa doolarkii oo crypto ah midaan hadhow wax lagu iibsan kartaa marka boqol dhahdid marka waxay noqonaysaa 98 tusaale marka waa inaad raacisid marka $2 oo kaleeto si $100 kuu noqoto si aad coin aad u gadato si aad coin ku iibsato kadib waxaad leedahay continue okay wuxuu ku leeyahay waxaa spend gareysay $102 waxaadna helaysaa USDT oo ah $100 ah ayay noqonaysaa kadib waxaad leedahay halkan ayaad gelinaysaa haddii akoonkaaga ku xirneen halka akoonkaaga ku xir kadib information-kaaga geli kadibna continue dheh waana isticmaal physical maaha mastercard midaasna anaa ka hubo haddii ay ku shaqey weysay muuqaalkan 3 qofood kaliya haddii ay u shaqey weysay commenti kusoo qortay haddii aad commenti kusoo qortiin waxaan balana inaan si live idin tuso oo si live ah u deposit gareeyo lacag haddaba muuqaalka intaas ku ogyahay waxaan rajeynaa muuqaalkan ka faa'iideen wala muuqaalka salaag saar aad mahadsantihiin.